بسم الله الرحمن الرحيم وابتدى المشروع فلسفة فلافية مركلة وحن كهذا مانتا محمد ابن محمد الوزاعي درخان من كلوني جري الفارابي كما كعبان وعامد كم فلسفية المسلمين تكوي جوري وحنوها نينكي لوجو مجعبي معلنكي لبعض سين روسارنا وحين روسارنا معلنكي كواد ورستو سببت لوجو بحي معلنكي كواد نوحها علمية وكهالي فربدنان تودا سأقول يا مركو الفارابي كهالي سبنا علمية كبدن كوي رستو luuqado badan inuu yaqaano waxa ee loo bixiyay macallinkii labaad waxa ku dhashay magaalada loo jeedo Faraa inuu ku taalo Turkiga laakiin asalka inuu ahaa Farisi iyo inuu ahaa Turki waxa mu'arrixiinta ka dhaxeeya khilaaf hase ahaatee wuxuu ahaa nin luuqado badan yaqaana kana tirsan majliskii majaalista boqortooyada Sayf Abi Hamdan loo jiray oo ku noolaa magaalada Suuriya ku taalaata أبو نصر محمد الفارابي وحول الشيء لو بقول لي نحن كي هجرية ده وأنا متكبد فلسفية ده وعمري قدر هذا نورا إسلامك سنورو صارقنا إسلامك فلسفية يسوس مسوا قاريان سنورو صارقنا أفلاطون يورستي سقراط وحيسوها يعني معلمين يعرضي هسه عاتي فلسفية المسلمين تو متكونك كله مسوا قارين وقت ما ودحي هذا intaan ugu gelin muxuu ku soo kordhiyay falsafada Abu Nasr Muhammad al-Farabi iyo waa maxay aragtiyihiisa quseeya siyaasadda iyo musiga iyo aragtiyihiisa saacadada kuwaasi oo aragtiyo saameeyay falsafada muslimiinta iyo taariikhda muslimiinta fikirkaba muddo dheer hase ahaatee marka hore waxaanu ka jawaabi doonaa su'aalaha waa maxay taariikh soo koobista taariikhda falsafada jawaab noqonaysa macnaheedu su'aal noqonaysa macnaheedu saan la soo weydiiyay جواب سياجس waxay noqonaysaa taariikhda falsafada oo kooban waa taariikhda fikirka bini'aadamka taariikhda fikirka bini'aadamkana waxa soo hogaamiyay oo calanka u qaaday rag badan hase ahaatee ragga ugu calanka dheeraa ee taariikhda fikirka bini'aadamka soo hogaamiyay waxa kamid ah filosofiguna waa doonista ama sida hore soo sheegnay jacaylka xikmadda سأقول ما دام ويتهاي شعائل كحكمتنا معناه واحد ويان عد كستا أو حكمة بعدي عدي بالشدة سكتر سنة واحد أبحثي فلسفي أما فيلسوف سنة ورسا رجنا فيلسوفين تبع حكوا الرجال رج سوفستايين ونشروا يوم كأنت هودين حكمة هايستان هساعته كديب سقراط فلسفة دوحة هاي مد إن حكمة لبارو لونا شعلاده لنطون سأقول أن روسا رجني سقراط أفلاطون يورستو أو فلسفة الجريكة رجع فكر كسامي هل كانوا كذبنا رجني مسلمين تكند الفارابي من كمرة إنه يبنو سينا يبنو رشد يبنو طفيل ونيجونا يابع على المعرفة سجلتي سلوكه تريو فيلسوف نوعا قيبهان لما أقواس يوحى كانوا سامي فلسفة مسلمين تا فيلسوفية يكسر كذي فلسفة أو وينا أبو حامد الغزالي أو يسوي فلسفة كسر كذي لكن فلسفة كسر كذي فلسفة وحكى فلسفة أما تاريخ المسلمين تكوتشرا رقبضا أو علم جيلو رجلي علم الكلام كإسلام كاسيو عقيدة أما علم عقيدة أو البن نقاش عقيدة كاسنا يجونا رقبضا أو علم كاسي يجونا وحياة سنين فلسفة halka aynu iyaguna ka aragnay inaynu halkaaynu iyaguna soo arki karno filosofiyo iyaguna saameeya taariikhda oo filosofiyada suufiyiinta iyaga waxa ugu weyn ibn al-Arabi waxa kale oo kana Hallaj waxa kale oo kana ragaas halkay jiraan iyaguna suufiyalan ahayn iyaga laftoodu falsafada isticmaalayeen sida aynu arki karno Ibrahim al-Adham nin kaleeda ama Abdulqadir Jilani takalana waxa kale oo jira filosofiyadii galbeedku iyaga laftoodu way sii socdeen waana falsafada ugu qadiimsan uguna weyn uguna taariikhda badan uguna aad moodo inay dhisankeeda ama noocay u dhisan tahay qaab dhismeedkeedu uu yahay mid isleeg oo isku siman aan la kulmin darbad ama cid ka saarta meesha ama waqti ay falsafada galbeedku noqoto shay la wada baabin karo way jireen waqtiyo ay dib u dhac weyn ku yimid iyo waqtiyo ay hoos u dhacday hasaatee muu jirin waqti falsafada galbeedka gebigeedaba loo noocay halka falsafada muslimiintu ay la kulantay taariikh weyn oo la dagaalana ama diidisa
ساويد فلسفة galbeedku kadib waxa soo bixi doona Hegel iyo Immanuel Kant iyo David Hume iyo Durkheim iyo Schopenhauer iyo rag badan oo iyagana ay falsafadooda arki doono kuwaasi oo leh falsafado aad u kala duwan hase ahaatee qaarkoodna sida Nietzsche kale falsafadiisu aad u fogtay qaarkood ay leeyihiin falsafado siyaasadda oo qaybo badan fashilmay qaybo badan guuleystay sida Karl Marx takana waxa arki karnaa falsafad ka jirta iyaduna Asia sida China iyo dhulkaasi oo sida Buddha iyo Confucius ninka la oran jiray iyaguna ay leeyihiin falsafad qaab dhismeedkeedu ka duwan yahay falsafada galbeedka iyo ta muslimiinta sabab dadkaasi oo dhan ay saameeyay taariikhda fikirka bini'aadanka soo koobistooda iyo soo ururinta taariikhdoodu waa shay ama qayb bay ka qaadanaysaa inaynu si fiican u fahanno khariirada ama qaabka uu bini'aadamku u fakiray waqtigii hore iyo qaabka iminka uu ku soo gaadhay qaabkan uu fakirayo bini'aadamku markaad garato taariikhda iyo backgroundka bini'aadamka fakirkiisa ayaad kadibna heli kartaa ama macnayn kartaa waaqica iyo nolosha iminka aad ku noolshahay si u fakirayo caalamku si u fakirayaan caalamka muslimiinta si u fakirayaan caalamka galbeedka si u fakirayaan caalamka Asia iyo waa maxay nidaamka u dhaxeeya fakarkoodu wuxuu qayb ka yahay taariikhda fakarkooduna waxay qayb ka tahay qayb nidaamka ay imika u fakirayaan saanku jawaabna su'aasha waxa kale aadabaan mid kamid aragtiisa ugu weyn waxa weeyaan kitaabkiisii oo u bixiyay الكتاب الموسيقى الكبير waana kitaabka oo imika taariikh ahaan ku canbaxsan yahay Al-Farabi inagu sheegayna inuu caan ahayn sida Ibn Sina Rushdi hase ahaatee kitaabka ama imika caalamiyan loo caalamsan yahay waxa weeyaan kitaabkiisaasi oo mid kamid ah kitaabadii ugu horeeyay ee muusiga laga qoro iyo qaabka loo garaaco iyo laxanka hase ahaatee Al-Farabi kuma koobsana kitaabka wuxuu wax ka qoro cilmiye aad u tiro badan leh sida hore soo sheegnay oo lagu bixiyay macallinkii labaad cilmiga wax ka qoray waxa kamid ah inuu isku dayo inuu isu keeno Aristo iyo Aflaatoon oo soo aragnay farq u dhaxeeya fikirkooda midna uu misaal ku fikiray midna waaqic ku fikiray yani ay isku dayeen inuu isu keeno inkastoo ay culimada qaar ku doodayaan in tarjumaadkii loo dhiibay Al-Farabi aanay wada sax ahayn asaatay wuxuu isku dayay inuu isu keeno aragtiyada waxaanu ka qoray kitaab uu bixiyay al-jam'u ra'yi bayna al-hakimayn laakiin ku xirkaadina أرادي سو كامل سنة مدينة الفاضلة كتاب بحية الآراء لأهل المدينة الفاضلة يا كتاب بحية تحصيل السعادة إنك استولي كتاب لنا منطق الفارابي ويسوي نفس سيكون له حجة في عن اللي به اللي كانوا وكذا سيء نوعا كرتا إنه يلي لبعض وجود كأماكن سنشاهد شيء جريتان كشيء ده وقيبية لبعض شيء وقيبية وجود أو واجب هاي جريتان كيزو يوتيوب وهاي ممكن جريتان كيسو محل وجه هذا كم عنيز هذا كم عنيز وعويان إنه جريتان ممكن إنه تشيرو شيء سلا عادي بلادن كتاي وصورة قلنا جرت وأنا صورة قلنا جري لكن جريتان كإلهي وجريتان واجب تهاي إنه تشيرو هذا وتشير أما تشيرين كون كان هتشيرو أما يعني تشيرين أنت كستاجرت أما يعني تشيرين إن أنا وحبي تشيرين هذا جرت حتى إلهي إنه تشيرا وواجب سأوجد جريتان كاسي واجب كاي واجريتان لازمة وواجبة أون إسقى عقل يمعقول كيسو أسكمديهين وأنا جريتان مركز تشريه وأنا ردي لو ردين كرو ضدك دين تأنكره إنك حجة نقول كرا مرة بدل ما يصير أراد هذا مدينة ده مجال فاضل كعائة وهذيك السنة يوحكم مدينة فضاء الشيء اللي كلا غيبي مجال ده هسي أما ضدك كنا لفضاء الشيء استعماله يعني أما فضاء الشيء وباهيين إنه وحنا مثلنا هاي مسلم هان مقالدي هو الأكسنين بشر باركاين هاي مقالدي النبي محمد مدينة مقالدي السنة محمد وكسر حساري مقالو ظلم ذي أمدو ومكاهين مقالدي السنة محمد كاني أينو أرجني إن تاريخ تقارني جريتان كيدو ومقالو كمرن وحياة بدن أو سفوي نوع بريعان كان مقالو يكودين كشران ومقالو مدحو نقطة إمبراطوريات لكن آن نقنين مقالة السادة مرقة سادة كليليين أضمها أي شوغان أساعتي وحي نقطة مقالة أسمان أضمها يو مدحدا مقالة أسمان قريقة يفقراء كواسو لما أنتو وضع صعدا فضائل اسكمدا أساعتي مقالو يكالب بيدو وحكا جيرا لولان طبقات وحكا جيرا لولان أخلاقيات كسرائسان لولن أفكارات هسه المقالة داسي وكويرايا وحصورا
سأوجد فارابي مقالدي وحا سامين وين كيرتي مقالدي هسي نبي محمد ما دام وين روسو أرنا مقالدي أفلاطون isnoo isku dayeen falsafadiyo qaab magaaleedka hase ahaatee magaaladaasi muslimiintu waxay ku yeelatay saameyn haddaba akhlaaqiyaadka isaga fadaaisha wuxuu qaybinayaa fadaailsha dhowr fadaa'il ayuu kala qaybinayaa inkastoo uu ra'yiga ama aakhirka uu doonayo in magaaladeena inay wax xaqiijiso dadka sacaadada سأوجد مقالة سوى قبنية فضائل نظرية يفضائل فكرية يفضائل أخلاقية يفضائل عملية سلاحية فضائل شخصية أخلاقية يفضائل فكرة يفضائل طبيعية فضائل أخلاقية إنه كان جيس لماذا عدالة فضائل أخلاقية إنه كان فضائل خلقية وفضائل ضدك كل معاملة أما رقمات كضدك كل رقمات إن عدالة هي إحسان صميص إن أدوق نفترض فضائل هذا فكر قاعد جيس لما أخلاق يارتو دال إن ديارتو معرفة يتعليم يقنعين وحين قلنا فضائل نظرية فضائل عملية جرى الصناعات يمجال الصناعة وحسم يسطو أو أي يراتو لما فضائل شخصي أو لن أكرد الدواني المجال ده سعيلة ده هيسوق كوبسة وحيسوق مريان آخر كإن حقيقيان سعادة يسوق سكر قبيل سعادة أصلية يسعادة قصوى يسعادة يدون نقول سعادة سائفة أو بينه موسو وذكر بكرنا أركتيه فارابي ساعة أركتيس هو وين سياسية أي سياسة ده سكان واحد المجال ده سين عدالة حقيقة لازم كدقيقي ما يحين خوفك أوكل يعني لا هي لقى بعضه ولا يسكو من الأي كبقت كيسة لكن واحد إن لحقيقية فضائشة ما دام فضائشة لحقيقية ينا عضتك معرفة يتعليم يتقصي يتحليل يا حقيقية يان حقيقية يان شجاعة يوعي يدون تان السعادة إن ضدك سعادة لا حقيقية دنيا سأسألوا ويري ضدك وبالشدة مركز تنا ما دام وبلادنا كذي حيوان اجتماعي شو معلم كيسي كوادي أرسطو كاركي oo yahay xayawaan u wada dhaqmaya kooxo bini'aadana maadaama in kooxahaasi ay u wada shaqeeyaan si xaqiijinaysa maslaxada qofka oo u xaqiijinaysa in qofkaasi sacaado gaaro maadaama haddii laakiin ay bulshadaasi tahay bulsho aan xaqiijinaynin ama aan qof kastaaba qabanaynin waajibkii laga rabay bulshada waxa soo baxaysa bulsho jaahila ama madiino jaahila magaalada aan dadkeedu qabanaynin inuu qof kastaaba qabto khidmadda ama shaqada anfacaysa walaalkiisa kale si ay u wada gaaraan dhammaantood xaq sacaado waxay noqonaysaa magaalada jaahila ama aan xaqiijinaynin kitaabkiisa kale taxsiilu sacaada wuxuu kitaabkiisaasna kaga hadlayaa aragti odhanaysa bini'aadamku waxay u socdaan dhammaantood sacaadada ككبد عيارية يك دجال جلية سو حقيقي يقول يك قارد ديدية يك جود ديدية يدمان تود وحي ديدية يعني إنه هلان السعادة لكن سعادة ده وفي عني وسعادة عقلها وقفك اختيار إرادة ويسوي دونه وكدورتي تاسيو كو إيمان إسا تعليم يفكر يأخلاقيات يفضائل وحقيقي يقفكو كو إيمانين إنه متعة أمل لدو حلو واختياره فضل كل ما نسا aragtidaasi waxaad moodaa falsafadu baydooda isku waafaqsantay saacadu tahay caqli hase haatee casrigan dambe saacadadu waxay yeelatay aragtiyo aad u tiro badan iyo noocyo aad u tiro badan waxaan isku dayi doonaa mar inaan ka hadalno farqiga u dhexeeya saacadada iyo sayniska iyo farqiga saacadada aragtida ah iyo saacadada waaqica u dhexeeya saacadada waqtigan dambe waxaad moodaa inay new positive psychology of happiness wax la yiraahdaa inuu aad u saameeyay oo wax badan iyo aragtiyo badan ku soo daray hase ahaatee imika xalaqadeena intaasi maanta ku egtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam